magaalada Garbaare ee xarunta gobolka Gadow waxaa lagu soo dhaweeyay ugaas Maxamed ugaas Cumar ugaas Xirsi soo dhaweyn ballaaran ayay u suubiyeen boqolaal shacab ah oo loogu talagalay soo dhaweynta ugaaska inay ka qayb qaataan kadib ayuu ugaaska booqasho gaaban waxa uu ku tagay qabriga madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Siyaad Barre bartamaha magaalada mar uu kula hadlayay dadka ugaas Maxamed ugaas Cumar ugaas Xirsi waxa uu ugu baaqay inay ka shaqeeyaan midnimada iyo isku duubnida taasina ay keeni karto in bulsho walba ay ku naalooto nabad iyo horumar sidoo kale waxa uu ugu baaqay ugaaska cid walba uu quseeyo shirka midnimo ee ka furmiyay magaalada Garbaare inay ka soo qayb galaan si shuruud la'aan ah marka ugu horeysa waxa salaamayaa dhammaantiin hooyooyinka odayaasha dhalinyarada qaybaha bulshada dhan waa salaamayaa dad iyo muxuu ahaayay inta goob joogto Garbaare salaam kadib aad baan ugu faraxsanahay sida ii soo dhaweeyay waan ka mahadnaqayaa waxaad samoodaa maanta maalkii la igu duubay maanta inay ka xoog badan tahaybo shirkan ka socdo gobolka Gadow ee Garbaare waxaan rajaynayaa inuu noqdo midka koowaad oo gobolka waxtar inuu noqdo waxaan kaloo shirkan u rajaynayaa mid Soomaaliya waxtar inuu noqdo waxaan shirkan ugu rajaynayaa inuu noqdo mid islaamka waxtar waxaan sida ugu baaqayaa midnimo Garbaare waxaa ka socda u diyaar garowga shirka midnimo laba wajigiisa labaad oo la filayo inuu ka furmo magaalada iyadoo ay ka qayb qaadan doonaan siyaasiyiin uqaal culumoodiin bulshada qaybaheeda kala duwan iyo sidoo kale mas'uuliyiin ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya oo maalmaha soo socda ku soo food leh magaalada Garbaare Jilaan Xuseen Yuusuf TV-ga caalamiga
لغربي وبالك لا لغربي وبالك لا لغربي وبالك لا لغربي وبالك لا لغربي وبالك